Center weyn oo laga dukaamaysto oo ku yaala magaalada Tampere oo ah magaalada saddexaad ee dalka Finland ayaa lagu soo waramayaa in dhowr qofood lagu tooreeyay oo mindiyo la durduray. Centerka uu shilkan ka dhacay ayaa booliiska lagu wargeliyay 4:23 daqiiqo xilliga waddanka Finland, taa oo ku beegan 3:23 daqiiqo xilliga Norway. Dhacdadan oo ka dhacday magaalada saddexaad ayaa lagu soo warinayaa in dhowr qofood tooreeye lagu dhaawacay. Waxa ayna booliiska oo goobta soo gaaray la sheegayaa in ay qabteen hal qof oo ay kiiskaasi u xireen. Goobjoogayaal ku sugnaa hareeraha centerka ayaa soo warinaya in ay indhahoodu qabteen ilaa iyo 4 gaadiidka booliiska ah iyo 3 gaari oo ambalaas ah oo goobta si degdeg ku soo gaaray. Lama caddayn ilaa iyo hadda tirada dadka tooreyda lagu dhaawacay inta ay la eg yihiin, si taa lamidana dadka lagu dhaawacay. Dhaawacyada soo gaaray halistooda iyo khatarahooda inta ay la eg yihiin ayaan weli la carabaabin. Magaalada Tampere oo ah magaalada saddexaad ee ugu weyn dalka Finland ayaa waxa ay dhanka waqooyi 200 kiiloomitir ka xigtaa caasimadda waddankaasi Finland ee Helsinki. Halka ay wararka ugu doorkaroon idinkaga imaanayaan waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. Waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.